السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشا قيمها إيا قايها له نقل السعودة دافها دوليدا داوديال كسو دوادا برنامج كيني كسمو إيا كيسي وآحلغان وكالي كلا سعوتان تيفيغا سومسات داوديال إذن كون نقر حاليا هذه يتشيروحا أغيدين وبرنامجدين هوري آد داود جيرتين maalinta sabtida laakiinse arrimo dhinaca waqtiga ka yimid dartii waxa loo bedelay barnaamijkani inuu baxo maalinta ama fiidka axadda daawadayaal waa qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena kasmo iyo kayse awal waxa aynu saarayn gaari aynu taarikadiisu ahayd dhibaatooyinka afka Soomaaliga haysta hadda waa ka yara degaynaa waxoogaa baynu dhinac u lugaynaynaa dabeetana waxaynu fuulaynaa gaari kale oo taarikadiisu tahay kala sooca qabiilka iyo qabyaaladda caawa ayaynu gaarigaas saaraan doonaa kadibna aynu meelo dhowra ku mari doonaa dhaqaaqeena u horeeya waxa aynu booqan doonaa waxa loo yaqaano qabiil inta badan barnaamijkeenan waxyaabaha aynu kala qeexayno oo kamid ah ama ay ugu horeeyaan qabiilka iyo qabyaaladdu waxa aynu ku kala saafaynaa waa suugaan haddaba booqashada ugu horeysa waxa aynu ku tagaynaa ama ku booqanaynaa qabiilka iyo maansada la yiraahdo astaan oo inoo sifayn doonta ama inooga warrami doonta waxa qabiilku yahay waayo waayadan dambe waxa cadaatay in qabiilkii iyo qabyaaladiiba la kala garan la yahay oo ay sida caana iyo biyo la isku daray isku milmeen haddaba si loo kala sooco ama loo kala saaro waa inaynu dadaal badan galnaa aynu booqano maansada astaan oo inoo qaadaa dhigaysa qabiilku waxa uu yahay waxay tiri qof iyo magac baynu nahay qoys iyo ehel baynu nahay xigto iyo qaraabaynu nahay haddaan la qalloocinayn qaybiya reeraynu nahay qoom iyo ummadaynu nahay bulshiya qaran baynu nahay qaneecaad waa runtee qoladu hooy maaha ceeb waxay inooga bilowday maansadu hadalkeedii in qabiilku qof ka bilowdo dabeetana uu qoys ilaa qoom ama qoomiyad ama qaran uu ilaa halkaa u socdo kadibna ereygii ugu dambeeyay ee ayna tiri wuxuu ahaa qoladu hooy maaha ceeb way inoo sii wadaa maansadu doodeeda oo waxa ay leedahay waxaan isba qaban karayn waxaan isba qaadi karin dad yahow la iskuma qasbee adoon boogtaada qalan qoonteeda ku raadin male bulshooy qaladkaaga jira ha saarin cid aanu qaban qaneecaad waa runtay qoladu hooy maaha ceeb waxayna leedahay maansadu oo ereyadan u dambeeya nuxurkoodu yahay marka ay qabyaaladu wax idin yeesho waxa aad dubbaha kula ciirtaan qabiilka waxa aad tidhaahdaan qabiil baana dhibay oo ku calaacashaan waxa aad tidhaahdaan qabiilka ayaanu tirtiraynaa taasina waxa weeyaan qof bukaankii hayay meel kale ka raadinaya ama dawadiisii dawo aan ahayn u liqaya marka waxay ina leeyihiin erayadani ha isku khaldina arlada ha isku walaaqina oo ha isku dhajinina waxaan isqabane qabiilkii iyo qabyaaladu waa kala noocee waa kala waxee qabiilka ha ku daalina eed aanu lahaynna ha saarine qabyaalada xaggeeda u kaco oo dubbaha iyo waranka aasidataan waxa aa kula dareertaan xagga iyo dhinaca qabyaaladda iyo ta dhibaatada ku haysa oo iyada ah
maansadu doodeeda way sii wadatay waxay tidhi qabyaaladdu waa falxumo qab iyo dulmi weeye culus qalbiga falan baa ku mama qabiilkuna waa astaan qabiilkuna waa astaan quruumuhu isku gartaan ilaahay baa qadaray quraankeenaa fasiray qaneecaad waa runtee qoladu hoy maha ceeb maansadu in yar bay inooga taabatay qabyaaladii oo waxayna tidhi qabyaaladdu waa fal xun oo dulmi ah meelaha ama waxyaabahay ku astaysayna waxaa ka mid ah qab inay tahay qab fool xun oo qab oo micnaheeduna kibir iyo dulmi inay tahay isla markaana waxay maansadu inoo qeexday in qabiilku yahay wax astaana oo la isku garto oo diinteennu inoo fasirtay oo ilaahay quraankiisa inoogu sheegay waayahay maansada iyo doodeedii ay qabiilka inoo qaadaadhigaysay ama inoo fasiraysay ama inoo qeexaysay haddaynu halkaa ku dhaafno weli maansooyinkii halkoodii bay ka sii soconayaanoo gaadhigii maansada ayaynu saarannahay iminkana waxa aynu gaadhiga u dhaqaajinaynaa xaggaa iyo maansada la yidhaha quursi talow quursi maxay ka hadlaysaa magacaba ka garo qabyaaladda waxaa laysu qabyaaladeeyaa siyaabo kala duwan mar midab baa laysku qabyaaladeeyaa mar diin baa laysku qabyaaladeeyaa mar isir iyo qabiil baa laysku qabyaaladeeyaa mar koox baa laysku qabyaaladeeyaa mar xisbi baa laysu qabyaaladeeyaa qabyaaladdu qaybo badan iyo siyaabo badan baa bini aadamku isu qabyaaladeeyaa oo ay isu xumeeyaan marka ay isticmaalayaan qabyaaladda haddaba quursi waxa ay inooga warramaysaa ama ay inooga yaro sheekaynaysaa marka qabiilka wax lagu qabyaaladaynayo ee qofka isir ahaan lagu dulmayo sida loo dulmo ama loogu faano ama loo caayo ama loo xaqiro marka maansadu waxay inoo jilaysaa qof wax quursanaya ama qof wax cid u qabyaaladaynaya bal hadda aan dhegaysanno waxay tidhi miyaa qayrkaya tihiin annagu qaran baanu nee idina dar la quursadiyo quruun sillan baa tihiin inaannu qabiili nahay quwad iyo baaxad bale la taaban halkuu qabsado dunidu sow nama qirsana cajiib bal hadda eeg bal hadda u fiirso erayada ay isticmaalayso maansadan jilaysa qofka wax qabyaaladaynaya inaannu qabiili nahay quwad iyo baaxad bale la taaban halkuu qabsado dunidu sow nama qirsana annakaa kaa qola habboon annakaa kaa qaaya wacan annakaa kaa qiimi badan qabyaaladdu waa sidaa waxaan qori kuugu dhicin in laynkuma qaban karee gob aan qayirmayninoo qun u dhalataanu nahay dad aan qalad yeelaniyo annagu qumanaanu nahay dad aan qalad yeelaniyo annagu qumanaanu nahay qalloockii nagu falana qudhaannu ka jari karaa annakaa kaa qola habboon annakaa kaa qaaya wacan annakaa kaa qiimi badan qabyaaladdu waa sidaa maansadu weli doodeedii way sii wadataa sidaa kuma hadhin waxay leedahay haddana annagaad noo tahay qabbaan bal hadda eeg sida ay wax u quursanayso ama qofkaa ay jilaysaa sida uu wax u quursanayo ee uu wax u qabyaaladaynayo bal hadda u fiirso annagaad noo tahay qabbaan
wixii qalbigaygu rabo qasab bay kugu tahee miyaad qowl celin kartaa wixii aan soo qaridho haddaanad qabuuli i odhan dib baad uga qoomamoon annakaa kaa qula habboon annakaa kaa qaaya wacan annakaa kaa qiimi badan qabyaaladdu waa sidaa waxaynu halkaa ka dareemaynaa ama ka garan karaynaa oo aynu ka dhuuxi karnaa ereyada maansadaasi inoo adeegsatay iyo nuxurkooda in sida wax loo qabyaaladeeyaa marka isir ahaan ama qabiil ahaan laysku qabyaaladaynayo in ay sidaas tahay markaana waxaynu garan karnaa dulmiga kibirka foolxumada iyo xumaanta ku jirta marka cid la quursanayo waxaana halkaa kaaga cad ama kuu soo baxaysa wax kasta oo la quursado oo aan ilaahay quursan inay dembi iyo dunuub culus tahay aynu haddana dhaqaajina gaadhiga in yar oo aynu haddana u dhaqaaqno dhinacan iyo maanse kale maxay inoo sheegaysaa waa adiguba qiyaas ayaa magaceeda la yidhaahdaa waxaynu markii hore soo marray mid inoo fasiraysa ama inoo qeexaysa qabiilku waxa uu yahay oo inagu leh qolada in la sheegtaa ceeb maaha maxaa daliilo ama inaanay qoladu in la sheegta ceeb ahayn hadda magaalaynu joognaaye inaga kaxee bal hadda miyi inagee bal hadda dadkan ku nool halkaa u tag bal hadda waxaad eegtaa qabiilku meeqaanka uu ka leeyahay sida looga saso ama cuqdada looga qabo ama looga boqo marka magaalo la joogo ma tahay ama ma la mid tahay marka miyi la joogo waa maya labada qof ee miyi jooga ee iska hor yimaadaa marka ay isa salaamaan waxaa labaad ee ay isweydiiyaan waa qabiilka ay yihiin qof waliba qofka kale wuu haybsadaa wuxuu yidhaahdaa qolomaa tahay mid waliba ka kale ayaa waxa uu u sheegaa qolada uu yahay waa la isbartaa waa la is aqoonsadaa sidaasaana haddii laysa sooraayey iyo haddii lays marti qaadayeyba laysku sii marti qaadaa oo laysku macaasalaameeyaa haddii dariiq lagu kulmayna sidaasaa laysku nabadgeliyayaa ceeb iyo cuqdad iyo xumaan midna ma leh oo ma taallo laakiin marka magaalada lasoo galo ayaad maqlaysaa qabiilkii oo loo isticmaalayo qabyaalad ama qabiilkii iyo qabyaaladii oo aan la kala sooci karin oo isku dhafan ama qofkii oo kaba baqaya inaanu sheegan karin qabiilkii uu ahaa gurigiisa markuu joogo ama markuu kooxda la qabiilkaa la jooga qabiilka wuu sheegan karaa ama waa ka sheekayn karaa laakiin markuu cid kale la joogo afka ayuu kala baqayaa inuu qabiil soo hadal qaado oo talow qabiilka ma laga maarmi karaa su-aashu jawaabteedu waxay noqonaysaa maya oo waayo qabiilku adigu kaa bilaabmaa magacaagu ka bilowdaa marka magacaaga laga maarmaya adiga ayuu qabiil laga maarmaya taa micnaheeduna waa adduunka dad ma jirayo haddaanu qabiil jirin waayo qabiilku waa isir waa tarankii adduunka waa qaybo waa astaamo laysku garto oo heedhe telefoon iyo adres iyo waxyaabo noocaas aynu heli karaado aynu adeegsan karaado naylagu soo hagaagi karaado naylagu garan karaaye maxaan qabiilka ku falaynaa qabiilka iyo wuxuu kaga duwan yahay kuwaas ayaa jira adreska haddaad ka guurto ku dabageli maayo oo dhabarka kaaga dhejisnaan maayo kulana socon maayo waa inaad adres kale ciwaan kale gashaa oo aad dabeetana dadkii kula soo xidhiidhayey ama aad doonaysay inay ku soo ogaadaan halkaad joogto aad u sheegtaa oo aad tidhaahdaa guriga tiradiisu intaa tahay baan degay
ama taleefankaygii waan iska bedelayo ka tiradiisu intaa tahay baan qaatay markaa intii aad siisay way kula soo xidhiidhi kartaa hadda ogow qabiilku waa ka duwan yahay ama guur ama soco ama seexo ama adduunyada meesha doonaysa ka tag qabiilku waa adris waa astaan waa ciwaan kula socda oo aan marnaba kaa hadhayn ka darane waa ciwaan uu kugu soo helayo qofku yaqaan iyo qof aan ku aqooniba haddaad qof jooga maxaan idhaahdaaye waddankii uu doono qof jooga Maraykan ama qof meel uu jooga aanu garanayn ugu horeyn qofka hadduu saddexdiisa magac iyo qabiilkiisa yaqaano waxa uu raadinayaa qabiilkii qofkaasi ahaa dabeetana qabiilkii buu tegayaa wuxuu leeyahay hebel 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 oo qabiilkiinan abaan doonaya waxa la leeyahay hebel 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 waxay isugu xigaan hebel hebel u tag iyo cid isugu xigaanay dabeetana waxaad u tagaysaa hebel hebel waxaad oranaysaa hebel hebel oo la yiri cid baa isugu xigtaan baan doonayaa adduunka qofkaasi meel uu kaga nooliyay hadda ma ogid mana taqaanid wuxuu ku leeyahay hebel hebel haa waa isxignaa ama ilmaadeer baan nahay ama ilmaadeer saddexaad baan nahay ama walaalaa baan nahay walaala hadday yihiin markiiba wuxuu ku oranayaa meel heblaayuu joogaa Maraykan hadduu joogo wuxuu ku leeyahay Maraykan buu joogaa Australia hadduu joogo Australia joogaa markaasuu taleefankiisa iyo meesha laga helayo baa ku siinaya haddii ay qaraabo dhow yihiin wuxuu ku oranayaa waxay anigu bariyaha meel uu ku nool yahay waruma haye waxa aan ku tilmaamayaa walaalkii ama in adeerkii rumo ku sheegi kara halku joogo dabeetana wuxuu ku siinayaa qofka kale magaciisii halka aad ka helayso waad u tagaysaa sidii baad u weydiinaysaa waxa laga yaabaa qofkii inaad saacado gudahood ku soo hesho adduunyada meeshu ka joogo hadda se qof ay istaqaaniin oo imika gurigiisii ka guuray taleefankiisiina bedelay haddii aanad qabiilkiisa ku doonin sidaad ku soo heshaa waa adagta waa inaad heshaa cid isagii aragtay oo ciwaankiisa taqaana ama taleefankiisa haysa waa inaad heshaa wax ka sokeeyo aad ku soo heli kartaa ma jirto laakiin haddaad dariiqi qabiilka marto markiiba oo aad raacdo ciwaanka qabiilka u raacdo markiiba saacada gudahood ayaa laga yaabaa qofka inaad ku soo qabato marka kala duwanaanshaha ama waxa u dhaxeeya waxyaabahan casriga imika adduunka la isticmaalo iyo qabiilku waxa uu yahay muhiimadda u dhaxaysa waata sababta ilaahay quraankiisa ugu sheegayna ciyaar ma aha ee uu ugu sheegay astaan waa xigmad haddii ilaahay og yahay in laga maarmayo quraankiisaba kuma soo dareen inagana inooma sheegin oo iska dayn lahaa laakiin waxa meesha ku cad inaan laga maarmahaynin sababtaan looga maarmayna waa taas oo aynu sheegnay waxa farqiga u dhaxeeya ciwaanada iyo taleefanada la isticmaalo ee qofka loogu soo hagaago iyo astaanka qabiilka loogu soo hagaago farqiga u dhaxeeya waa inaga sidaa u qeexnay aynu haddaba u sii gudubno hadalkii baynu yara dheeraynay aynu u sii gudubno oo booqano maasadii adiguba qiyaas oo iyaduna maxay inooga sheekaynaysaa waxay inooga sheekaynaysaa baashan qabyaaladda la yidhaahdo ee cudurka ah ee marka la micnaynayo lagu soo koobo hiil xaq darro ah hiilku waa laba waa mid xaq ah iyo mid xaq darro ah hiilku haddii uu xaq darro yahay waa qabyaalad haddii uu xaq yahayna qabyaalad ma aha waayo hiilka xaqa ah markasta waa loo baahan yahay sababtu tahay laba qof imika hadday isqabtaan oo ay maxkamad wada tagaan maxkamaddu way u garqaadaysaa waxa ay u hiilinaysaa oo xukunkii u ridaysaa qofkii xaqa lahaa ee garta ku joogay maxkamaddii hiil bay samaysay laakiin hiil xaqa bay samaysay laakiin haddii ay wax u xukunto kii aan xaqa lahayn ee xaqdarrada ku socday markaa maxay samaysay hiil xaqdarra bay samaysay iyadoo og
haddii iyadoon ogeyn ay ku xukunto oo iyadu u malayso xaqu inuu xaggan jiro markaasi ma aha qabyaalad ma noqonaysa ka maabay noqonaysaa laakiin isagoo garanaya xaakinku in qofkani xaq aanu lahayn oo uu gardaran yahay hadduu isagii garta siiyo isagoo oo sababa uunu daliishanaya ama laaluushu ka qaatay ha noqoto ama maxaan idhaahdaa isku midab yihiin ha noqoto ama isku diin yihiin ha noqoto ama isku qabiiliyo isku isra yihiin ha noqoto haddii uu intuu wuxuun u daliishado dabeetana uu yidhaahdo kan waxa weeye kan baad waa inaad kan xaqa siisaa ood kan u hiilisaa ood kan wuu qabyaaladeeyey marka hiil aan xaq ahayn weeye qabyaaladu marka micnaheeda oo kooban laysa siiyo haddaba dhibaatada ay maanta ku hayso Soomaali iyo adduunkaba qaarkii bal hadda aynu eegno maansada adiguba qiyaas la yidhaahdaa sida ay uga warramayso ee ay u leedahay ama ay noogu taataabanayso dhibaatooyinka ay qabyaaladu leedahay waxay leedahay qabyaaladu cabdo waa dulmiye ma aha qaab kale qabiilkaynu moodayna iyo ma aha qoyse qurun iyo qashaabiir xuniyo waa qab iyo beene qushqush weeye cuduro ku dhaca qoomkii jaahilehe qaafilnimo waxnaanaabisiyo waa afkala qaade qaladaadka aadmigu galay qoorta dheer tahaye dembi weeye qaraloo nafluhu qaaqda ka hayaaye waa quursi xaaraanahoon qurubanaanayne qiil uguma yaal diinta iyo aayadaa qorani qor waxaa ku raadsada cabdow qarad le shaydaane waa qasaare iyo hoog nafluhu uu qaldhabayaaye quluubaha ilaah garanayaa kuma qatoobaane qaadirkeen wuxuu reebado qalada weeyaane qayladeedu way taagan tahay qoomkaad eegtaba qorraxdii timaadaba dadbay qala tahaysaaye qabarkeedu waa saaran yahay qaaradaa idile intay qaran rogtaan maxamedow cidi qiyaasayne intay qaran rogtaan maxamedow cidi qiyaasayne qurumo darteed hooyadaybaa jira qubuuraaye adiguba qiyaas oo ogow ma aha qaab kale waa taa adiguba qiyaas maansadaasina waxay inoo sheegtay waxa la yidhaahda qabyaaladda iyo dhibaatadeeda waxay inooga warrantay inay adduunkaba dhib ku wada hayso laakiin dhibkeedu sii kala daran yahay waayo innaga haddaynu nahay Soomaali maanta halka ay inoola marayso waa rugmasho waa halis waa meel afkala qaad iyo afariira waayo maxaa dhacaya maanta oo aad arkaysaa ama dhagahaagu inta badan maqlayaan ama aad adiguba shaahid u tahay waxaad arkaysaa qof dilay oo qofkii uu dilay waagii hore marka wax la dilo ee uu shildhaco waxa dhici jirtay qofkii qofka dilay ciddii uu ahaa in loo tago oo ciddii wax laga dilay ay u tagto oo ay tidhaahdo noo soo qabto qofkii wax dilay oo loo soo qabto oo la hor keeno oo ay ama saamaxaan ama qisaastaan ma dhici jirin in ficil kala dhaco ama aarsi dhaco ilaa iyo labadaa qolo ay kala caal waayaan oo ay waxba ku heshiin waayaan marka la garnaqsado ee garta la kala qaadan waado ee qoladii wax dishay garteeda qaadan weydo ee ama ay ninkii soo qaban weydo ama qabiilkii wuxuu ku qancayay wadadiisii ay marsiin weydo markaas ayaa waxa dhici jiray wax la yiraahdo aargudasho laakiin inta ka horeysa lama degdegi jirin laakiin maanta qoriga marka qofka shildhaco ee qof dilo dhawaaqa u soo horeeya marka uu soo gaadho qofka la dilay ehelkiisii go'aanka ugu horeeya ee markiiba qofka ehelkiisu qaataa waxa weeye inay wax dilaan
ma aha xataa markiiba keliya waxay isweydiiyaan yaa dilay iyo nin reer hebela ama qof reer hebela baa dilay dabeetana isla daqiiqadiiba labada qof ama qofka ugu horeeya ee reer hebela ee ka soo baxa ayay iyaguna dilaan saacada ka bacdi waxaa laga yaabaa in qofkii dhintay uu intaasoo qof oo kale sahaydo kii wax dilayna uu sidaa ku badbaado way dhacdaa oo maalin walba way dhacdaa oo wiig walba way dhacdaa oo mar kasta waynu maqalnaa waxaa kaloo ka daran oo ka yaab badan oo ka naxdin badan in mararka qaarkood sidaa ka sii daran ay arrintu u dhacdo waxaa dhaci karta mararka qaarkood qof baa la dilaa qoladii wax laga dilay ayaa waxay tidhaahdaa ma hebel baa la dilay haa hebel yaa u qalmaynayno waa arro waxaa la yidhaahdaa wallaahi reer hebel baa ka dhaqaaqa ama hebel baa qofka ugu mudana waaba shiikh waaba ganacsade waaba qof magac leh oo qof weyn oo ixtiraam leh waa midaan waxba dilin waa midaan waxba galabsan waa midaan maalin xitaa ku fekerin inuu wax dilo dabeetana go-aankaas sidaa lagu gaadhaa dabeetana waxaa la dilaa hebel oo aan wax dhagara oo uu marnaba galay aanay jirin wax uu og yahay oo uu ka warhayaana aanay jirin isagoo meel iska maraya ayaa la helaa dabeetana halkaasaa naftiisa loogu qoonsadaa kuwii kale ayaa sidii oo kale yeela oo iyaguna godooda oo yidhaahda ma hebel baa la dilay dabeetana sidii oo kale ayay iyaguna u qamaamaan oo waxay ugaadhsadaan inta reer hebel ka dhaqaaqaysa way dhacday oo way dhacday oo way dhacday oo way dhacday oo way socotaa maxaa qisooyinkii ugu yaabka badnaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nin sheekha ayaa nin ay ilmaadeer yihiin waxa uu dakray nin dhakhtara dabadeetana qoladii dhakhtarku ahaa dhakhtarkii la dakray qoladuu ahaa ayaa waxay yidhaahdeen reer hebel yaa ka dhaqaaqa yaa ugu mudan micnaha waxaa la yidhi sheekh hebel waa shiikh caan ah oo dadka soomaalida oo dhammina badankooda ay yaqaaniin ama ay wada yaqaaniinba waxaa la yidhi waa in sheekh hebel laga soo takhalusaa sheekh hebel oo salaad subax masaajidkii ku soo tukaday oo ka soo baxay ayaa waddada loo galay dabeetana dhulkaa la dhigay mayd ahaanba looga tegey alluun baa badbaadiyey weli waa nool yahay laakiin nasiib buu ku fakaday iyo ilaahay oo aan tiisii ka dhigin daawadayaal kala sooca qabiilka iyo qabyaaladdu waa arrin inagu waajiba waa arrin ay tahay in qof kastaaba u dhaqaaqo oo ay tahay sida aynu ugu dhaqaaqaynaana waa maxay sidee baynu u kala soocaynaa sidee baynu u kala fujinaynaa waxa weeyaan qabyaaladda waa eex dulmi ah ee adigu ha ku dhaqmin cidna ha kula dhaqmin naftaadana ha ku dhaqin ehelkaagana ha ku dhaqin bila'aadanka kale ee adduunka kula noolna ha kula dhaqmin qabiilkuna waa astaane sida uu yahay oo keliya u adeegso haddii aad sidaa yeesho waad ka guulaysatay qabyaaladii haddii qof waloo inaga midiba sidaa yeelana qabyaaladii waa laga guulaystay waanaynu ka xorownay dhibaatooyinka aynagu haysa qabyaaladdu daawadayaal inta aynu barnaamijkan mar kale ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa anigoo ah maxamed kayse السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.